maanta waxaan isu gudbin doonaa hab cusub oo aad adigoo isticmaalay shirkadda isgaarsiinta Somnet ma Hormuud. Dadka Hormuud ay inta badan application aynu soo dhigno shirkadaha ay dhammaantood ku tijaabiyaan, laakiin anigu ayaa sheego shirkadda ay tahay kadibna habkaas ayaa lagu raacaa. Dad inta badan waxaa jira commentiyo hoos igu soo qoro dhaho barnaamijkan shirkad hebel miyuu ku shaqeynaa maya. Shirkadda markaas aan shaaciyo waayo hadday tahay Hormuud, Somtel, Telesom, Golis iyo dhammaan shirkadaha bixiyo adeegyada. Call ayayna soo galay, marka khadkii baan iska xireynay si callka uusan inagu aqoonsanin. Sidaan hore kuu sheegay waa adeeg waa Somnet. Intaas ayaad qoraysaa adeeg 100 fargees. Okay, aniga sim karwanka ayaa Somnet waa kaas marka lambar 3 ayaan ka dooranayaa oo ah PUK. waa haddii uu sim kaarka kaaga xirmo PUK sim kaarka kaaga xirmay ha iska gubin 1 2 3 4 5 ha ku waalin. si fudud fiir wax uu kuu soo qoraa kadibna si fudud ku xaliso adigoon shirkadda aadin, adigoon shirkad wicin. hadda inta badan shirkadihii way mashquuleen, taleefanada ma qabtaan, waxay ku leeyihiin sim kaarka noo keen. marka si sim kaar adigoo aadan waqti aad ku geyso kaleento ma haysid, laakiin waxaad haysaa xalkii aad markaas raadin lahayd. 3 ayaad leedahay. gali lambarka taleefanka 68 ayaan leeyahay 5 8 8 8. okay ayaan leeyahay. Stos ayuu soo bandhigaya adeeg asagoo aan qajajacan inaan gelinin. waa ku kaasa Somnet number PUK kood waa 1 2 3 4 waaye oo iska cadahay, laakiin haddii uu ka diido lambarka hadda PUK giisa waa kaasa. haddii aad adeega Somnet isticmaasho mise lafteeda isticmaasho taleefankaaga PUK giisa halkaas ka ogaaw. hadduu adeegan uu ku shaqeeyo subscribe sidii subscribe hanala dhaafina subscribe, maxaa yeelay waxaynu soo wadnay adeegyo aad iyo aad u qaali ah. hore waxaynu u soo bandhignay hab fudud oo adigoo EVC aan gelin aad ku ogaan karto Salaam Somali bangi dhaqdhaqaaqa. marka waxaan rajeynaya in adeegan uu idin anfacay insha Allah taala. wassalaamu calaykum warahmatullahi taala wabarakaatuh.